Siyaasad xumadu waa caqabada haysta gabi ahaan Soomaalida balse kale iliitay Soomaalidu iyo maanta waxaan ka hadlaynaa waa Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waa dowlad ku dhisan nidaamka federaaliga oo inta badan dowladaha adduunka ku dhaqmaan. Soomaaliya waxay xornimada ka qaadatay 1960 bishii Juun 26 Ingiriis iyo Talyaani. Ingiriis waxa uu gumaysan jiray Jamhuuriyadda Madaxa Bannaan ee Somaliland, halka uu Talyaani gumaysan jiray dowladda koonfureed ee loo yaqaan Soomaaliya. Soomaaliya waxaa soo maray 9 madaxweyne laga bilaabo dowladdii Aadan Cadde, tii Cabdirashiid Cali Sharmaake, tii Janaal Maxamed Siyaad Barre, Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Cabdilaahi Yuusuf. Dowladaha kala dambeeyay ee Soomaaliya soo maray waxay ahaayeen dowlado laga filan karo horumar, balse waxa dhacay ayaan ahayn wixii loo ballamay. Soomaaliya siyaasadeeda haatan waxay maraysaa halkii ugu xumayd abid ee lagu maamulo dal. Soomaaliya gudaheeda waxaa ka jira 5 maamul goboleed marka laga reebo Jamhuuriyadda Madaxa Bannaan ee Somaliland, balse waa 5 waxaana Soomaaliya ka taliya 6 madaxweyne, 5 madaxweyne ku xigeen iyo ra'iisul wasaare. Soomaaliya haddaba aan ka hadalno mawduucan u soconay. Xaaladdeeda siyaasadda Soomaaliya waxay maraysaa halkii ugu kululay siyaasad. Haatan xaaladdu faraha way ka baxday. Waxay dadka Soomaaliyeed la yaaban yihiin madaxweyne waqtigiisa dhamaaday haddana kursiga ku raaxaysanaya. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin dowlad gumaadaysa dadkii codkooda la maqlayay, kuwa dowladda u shaqeeya balse ka soo horjeestay markay arkeen halkay xaaladdu marayso. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin dowlad dhamaysay hantidii dalka haddana dhaqaalaheedu u sheegaysa ummadda. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin dadka shaqeynaya habka loo siiyay guryo ay lahaayeen dad shacab. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin dowlad ugaarsanaysa dadkii u shaqeynayay. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin abriska miicyaha dheer ee ku dhex galgalanaya filla Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin dowlad biishatay musuqa iyo wax isdaba marinta. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin madaxweyne muddo dhaafa. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin dowlad xiriir ku jirta dowladaha aqoonsada ee fahma siyaasadeeda. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iskhilaafsan oo cadaawad siyaasadeed ka dhaxayso. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin dowlad hay'adaha amniga inta ay guryaha dadka shacabka u dhacdo xoogaya hablaha Soomaaliyeed ee garoob gabadh iyo hooyo la qabo oo sigeeda joogo. Inta la kufsado la jirdilaayo dhaawac halis loo geysanayo oo aan cidna ogeyn la mooyee, balse mar ayuu soo bixi dulmiga loo geysanayo dadka Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin dowlad ximinaysa maamuladeeda gobolada marka laga reebo kuwa iyagu ka madax bannaan Soomaaliya. Balse caqabadaha jira ee la tacaalaya dadka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah caafimaad darro, macaluul, abaaro baahsan. Waa baahiyaha hadda ka jira Soomaaliya. Dowladaha shisheeye ee maalgashan jiray dalka Soomaaliya ayaa iyagu ku jahawareeray siyaasadan aan indhaha, dhagaha, lugaha, gacmaha lahayn ee iska jihaysan ee meel ay u socoto jirin. Soomaaliya waa dal ku yaala bariga Geeska Afrika, waa dhul dihin oo ku cambeerista lehna macdano kala duwan oo u horeeya baatroolka, dahabka waa macdanta sida aadka looga heli karo Soomaaliya. Dalkan Soomaaliya waxaa ka dhacday 2 doorasho, ta baarlamaanka iyo wakiilada ee lagu yeero golaha shacabka Soomaaliya, taas oo muran badan keentay. Kadib markay dhacday waxa war ka soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku andacoonaya inay sharci darro tahay xildhibaanada laga soo dooranayo Garbaharre iyo Ceelwaaq oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Sida la sheegayo, Farmaajo waxa uu meeleystay ama siyaasadeeyay xildhibaano ka badan inta loogu talagalay inay wax doorato lama laabkeeda, halka ay yaaban yihiin murashaxiintii kale. Haddaba dadka siyaasadda faaqida waxay sheegayaan inay sharci darro tahay waxa uu Farmaajo sameeyay.